dadkeenna waynu la talinaynaaye in maanta laga baayac mushtareeyo rag iyo dumarba isqaawin tiktoka lala soo fadhiisanayo habluhu ay isqaawiyaan oo wiilashu ay isqaawiyaan oo meeshii la qarin jiray bannaanka la soo dhigo inuu qofku isqaawintaa ka macaasho oo lacagu ku qaatuu isidhaahdo meelaha lacagta laga bixiyo isqaawintaa kaga hel iyo dad badan ku hel waxay noqon kartaa jidhkiisii oo qofku iibsanayo marka siday ruuxa dumarka ah xaaraan uga tahay inay xubinkeeda taranka iibsato oo jidhkeeda ay iibsato tanna tii unbay la mid taho waa ka xaraam marka inay cawradeedii qofku soo bandhigto oo sidaa ay lacag ku hesho ama wiilkiiba uu ku helo waa xaaraan xagga sharcigeenna walaalayaal waana nasiib darro weyn marka cawrada qarinteeda halkaasuu islaamku ka taagan yahayoo wax aad ikhtiyaar u leedahay ma aha laakiin waa wax waajib dembigaad ku jirtid iyo kii aad ku dhacday haweenaysan hays odhanin haweenaysan qalad iga fahmi hays odhanin madihid rajo ha ka quusan naftaada ha ka quusan raxmadda ilaahay ha ka quusan waayo dembiyadan aynu akhriyayno oo dhan iyo axkaam shariica dadka fadli badna oo iga fadli badna ayaa ku dhacay يا زنيسي صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا خمرق عبي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا وحضي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من كفضل بضمه ما دنبي ولا كوصر عبا حتى يغيب النقطة يعني رقي حمني عائشة رضي الله عنها إلا كرباشي يدمركي رقي وحا هاي المؤمنين بها صحابة هاي مركب دنبي كل عديد شيطان نبي محمد باو حلي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون آدم هو اللي بيوقفه ومن طبعنا قفك وين قدعيه لكن كو قفك كدعه وحوفي عن بالليلي هو التوبة الضبوضة إلهي بمحوين يلي فاستقيموا إليه محاكو حقا واستغفروه بإلهي فاستقيموا إليه واستغفروه كوكو منادة جدك ربي وهديبا وحيد كدع دعانا محي واستغفروه